Anigu waxaan ahay gabadh toosan. Waxa i soo martay sannado badan, mana jirin wax wiil ah oo i soo doontay. Waxaan arkay gabdho iga yaryar oo dhammaantooda la guursaday, Allana uu owlaad siiyay, ilaa cumrigayga uu ka gaaray 34 sano. Maalin ayaa waxa i soo doontay nin ka mid ah qaraabada, kaas oo 2 sano da' ahaan iga weynaa aniga. Ma uusan ahayn mid dhaqankiisu uu xun yahay. Waxaan dareemay farxad aad u ballaaran. Waxaa soo dhowaatay xilligii faraantigeliska. Waxa uu i weydiiyay aqoonsigayga si uu u dhammaystiro faraantigeliska. 2 maalin kadib, waxa i soo wacday hooyadiis, waxayna iga codsatay inaan u kulanno sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan ugu tagay si dhaqsiyo leh, waxayna i weydiisay in taariikhda miilaadiga ee ugu qoran aqoonsigayga ay tahay mid sax ah. Waxaan ku dhahay haa, way saxan tahay. Waxayna i dhahday, haddaba 40kii sano waxaaba kaaga harsan wax yar. Fursadda aad wax ku dhali kartana waa mid aad u yar. Aniguna waxaan rabaa inaan arko carruur badan oo aan ayeeyo u ahay. Igama aysan joojinin hadalladii xumaa ilaa ay joojisay faraantigeliskii. Waxaa i soo martay 6 bilood oo mugdi ah. Waalidkaygana waxay go'aansadeen inay cumro ii diraan si aan iskaga soo dhaqo murugtan aan dareemayo. Markii aan tegay gurigii Alle ee barakeysnaa, waxaan bilaabay inaan tukado oo aan Alle baryo si uu Alle iigu fududeeyo dhibaatadan i haysata. Markii aan salaadda dhammaystay, waxaan maqlay haweeney agteyda fadhisa oo cod macaan ku akhrinaysa Qur'aanka Kariimka. Waxay ahayd mid ku celcelinaysa aayadda Qur'aanka ee ah wa kaana fadlullaahi calayka cadiimaa. Waxaa iga soo daadatay ilmo fara badan oo aan kala joogsi lahayn. Haweeneydii waxay i gelisay laabteyda, waxayna mar kale akhrisay aayad ka mid ah Qur'aanka oo ah walasawfa yucطiika rabbuka fatardaa. Waxaad u malaysaa inay tahay markii ugu horreysay ee nolosheyda aan maqlay aayaddan. Nafteyda oo dhan waa ay xasishay. Waxaana ii soo dhammaaday cumradii. Waxaana ku soo laabtay gurigayga. Diyaaraddii waxay soo caga dhigatay garoonka. Markii aan ka soo degtay diyaaraddii, waxaan arkay gabadh aan saaxiibo nahay iyo ninkeeda oo fadhiya meesha soo dhoweynta. Waxay ahaayeen kuwo sugaya wiil la dhashay ninka qaba saaxiibtay. Waxaa imaaday wiilkii ay sugayeen. Waan salaamay gabadhii aan saaxiibka ahayn, waana ka sii tegay anigoo sii raacay aabahayga. Markii aan guriga imaaday oo aan iska beddelay dharkii, waxaa i soo wacday saaxiibteyda. Waxayna ii sheegtay in ninkeeda walaalkiis uu iga helay si aan la qiyaasi karin, uuna doonayo in uu i soo doonto. Aad ayaan ugu farxay kadiskaas oo marnaba aan filaynin. Maalmo kooban kadib oo aan sheekaysanay, araggayna koowaad 1 bil iyo badh kadib, waxaa dhacay arooskeena. Aad ayaan ugu farxay arooskeena, waxaana ii bilaabatay noloshii guurka. Ninkaygana waxaan ka helay wax walba oo aan jeclaa inta aanan guursanin ka hor. Wuxuuna ahaa mid ii haya ixtiraam iyo jacayl fara badan. Wuxuuna baari u ahaa waalidkiisa iyo waalidkayga. Bilooyin badan ayaa laga soo gudbay guurkeena, mana isku arkin wax calaamado oo muujinaya inaan uur qaaday. Waxaan dareemay cabsi fara badan maadaama da'deydu ay gaadhay 36 sano. Waxaan ninkeyga u sheegay inaan doonayo inaan isbitaal aado si aan isku soo baaro baaritaanno khuseeya xagga dhalmada, anigoo ka cabsanaya inaan wax dhali waayo. Waxaan la kulmay haweeney dhakhtarad ah oo ku takhasustay cudurrada haweenka. Waxaa la gaaray xilligii ay soo bixi lahayd jawaabta
baaritaanadii ugu horreeyay. Dhakhtaradii ayaa waxay ii sheegtay inaan loo baahnayn in la sameeyo baaritaano kale, waxayna ii sheegtay inaan uur leeyahay, oo aan loo baahnayn in la sameeyo baaritaano kale oo dheeri ah. Waxaan go'aansaday inaan iska daayo inaan baaro in caloosha waxa ku jira uu yahay wiil ama gabadh, maxaa yeelay wax walba oo Alle i siiyo waa khayr iyo wanaag. Markii la gaaray xilligii dhalmada, waan dhalay. Markii aan indhaha soo kala qaaday, waxaan arkay ehelka ninkeyga iyo ehelkeyga oo i kor taagan, kuwaas oo qoslaya, farxadna ay ka muuqato. Waxaan weydiiyay maxaan dhalay, waxayna hal mar ku wada dhawaaqeen, waxaad dhashay wiil iyo gabadh. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Waxaan si hoose ula hadlay nafteyda, kadib indhahayga waxaa soo dhaafay ilmo fara badan. Waxaan la ooyay farxad aawadeed. Waxaan soo xasuustay haweeneydii xaramka ku akhrinaysa Qur'aanka oo ku celcelinaysay aayadda Qur'aanka ee ah walasawfa yucطika rabbuka fatardaa. Waxaan akhriyay kalaamka Qur'aanka Kariimka anigoo indhahayga ay ka socotay ilmada. wasbir lixukmi rabbik fa innaka biacyunina. Waxaan u mahadceliyay Allihii iga aqbalay ducadeeda, kaas oo i siiyay wax ka badan waxa aan rajeynayay.